saddexda tiir ee in laga mahad celiyo qalbiga iyo in laga mahad celiyo carabka iyo in laga mahad celiyo jawaarixda iyo xubnaha marka laga tago waxaan raacinaynaa oo soo gabagabaynaynaa saddex tiir ama saddex shay oo inagu caawinaya in aynu la nimaadno mahadnaqaas shayga koowaad waxa weeye التأمل في نعم الله إن أغفر فرصته إلهي سبحانه وتعالى نعمك يقلدها فرها بدل لي نعموينك وكسيه إن أضل حظك استه قلبي جاجا يمسك هذا كسو حاضر الصو نعموينك إلهي كسيه هذا هو ترنيا نعمة عافماتك نعمة أمنك نعمة سكنك نعمة عرورتا هذا هو ترنيا نعم كاس إلهي كسيه إن أغفر فرصته waxay keenaysaa marka in aad xasuusato in ay jiraan haddaad caafimaad hayso dad aan caafimaad hayn haddaad guri degan tahay dad guri la'aan inay jiraan haddaad caruur leedahay in ay jiraan dad aan caruur lagu arsaaqin haddii ilaahay ku siiyay xoolo in ay jiraan dad aan xoolo la siinin oo tuugsanaya haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aw ku siiyay dhul nabada inay jiraan dad ku nool colaad haddii ilaahay barwaaqo iyo roob ku siiyay inay jiraan dad ku nool abaar dad ku nool bii'a faqriga iyo baahidu ay saamaysay waana dareemi kartaa markaad adduunka hadda u fiirfiirsato nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladay ee faraha badan leh ummado badan oo aan haynin ayaa jira waxaa inoogu dambeeyay innaga nicmada roobka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala baryahan dambe sida isdabajooga waxaa jira dad aan haynin nicmadaas marka haddii aynu ka mahad celin weyno oo aan ilaahay ugu shukrin weyno ilaahay uu awoodaa inuu inaga wareejiyo uu siiyo kuwa kale aan nicmooyinkaasi haysanin marka nicmada alla ku siiyey in aad u fiirfiirsato oo aad qalbigaaga ku soo xaadiriso waxay keenaysaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celiso shayga labaad ee nagu caawinaya inaynu ka mahad celino nicmooyinka ilaahay waxa weeye si guud in uu ruuxu eego cidda ka hoosaysa ee uuna eegin cidda ka sarraysa cidda kaa caafimaad badan in aanad eegin ee aad eegto cidda xanuunsanaysa ee kaa hoosaysa cidda kaa xoolo badan inaanad eegin ee aad eegto cidda kaa xoolo yar ee kaa hoosaysa cidda kaa caruurta badan inaanad eegin ee aad eegto kuwa kaa hooseeya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caruurba una siinin cidda kaa nabad iyo barwaaqo badan aanad eegin ee aad eegto cidda kaa hoosaysa ee nabad la'aanta iyo colaaddu ay saamaysay taas waxay keenaysaa in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiso haddii aad eegto cidda kaa sarrayso oo keliya waxaa imanaysa in aad yaraysato wixii nicmo ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu korkaaga ku galladay shayga saddexaad ee aan ku soo gabagabaynayno ay nagu caawinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celina waxa weeye an yaclama alinsaan inuu ruuxu ogaado ana allaha tacaala yas'aluhu yowma alqiyaamah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamo weydiin doono can shukri haadihi الnicam nicmooyinka iyo galladaha ma ka mahad celisay mise waad ka gaabisay wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وليدين ويدين دونا نعمويك iyo barwaaqadaas iyo galladaha ilaahay subxaanahu wa tacaala أو كوركينا يالي